magacayga maxamed geedi oo ka tirsan shirkadda Tianis waxaan kaga jiraa darajada 8aad 8 star waxaan kambaniga ka gaaray heer Saami Afrika ah kambanigan waxaan ku soo biiray 2017 bisha 6 ayaan ku soo biiray 2 sano iyo 2 bilood kaliya ayaan ka shaqeynaya alxamdulillah nolosheeda wax badan iska bedelay xaq dhaqaalo marka hore South Africa ayaan ku dhaqnaa 12 sano ku dhaqnaa qof ganacsada ahaa muddo 12 sano ah ayaa tira 4 jeer ah ganacsiga aan lahaa ee burburiyeen dad maaragtay jinsi nacayb ah oo dadka kale oo wadanka u dhalan aan nacab waxaan wadan ku soo noqday sanadkan December ayaan ku soo noqday 2018 ayaan ku soo noqday halkani hal sano kambaniga ayaa xaq ugu shaqeynayay qaybta marketingka iyo macaamil abuurida ayaan qaabilsanaa haddana halkan aan ugu shaqeynaya alxamdulillah waxaan qaatay abaalmarin gaari oo qiimihiisu yahay $10,000 sida arkaysaan gaarigan ayaan ka iibsaday qaybo kalena howlo kale iyo dana kale ayaan ku qabsaday alxamdulillah ilaah baa mahad iska leh dakhliga aad u fiican yahay tira 4 jeer ka badan ayuu ka badan yahay dakhliga South Africa ka soo galayay waa fursad noloshayda bedeshay alxamdulillah waxa mahad iska leh ilaahay waafajiyay marka labaad waxa mahad iska leh qofkii sponsorka ama wakiilka ahaa ee shaqadani ugu wargeliyay isla markaasna ii tababaray qofkaasna qof kale ma waa xaaskayga weey Saara Cabdullaahi oo iyadana darajada bronze global share saami caalami ah kambani kale iyaduna $15,000 abaalmarin ay qaatay waxayna qaatay abaalmarinta gaariga labaad ay qaatay nolosha waa la bedeli karaa alxamdulillah waxaan aragnay wado nolosha lagu bedeli karo anigu tayada kaliya inaan bedelay maaha waxaan sabab u noqday oo noloshooda bedeshay hadda abaalmarin gaar qaadanaya tiro 4 qofood ah oo tiimkayga ka tirsan yar Maxamed Cabdullaahi la yiraahdo oo ku dhaqan Kenya sidoo kale yar kale Maxamed Hilo la yiraahdo isla Kenya iyo laba gabdhood oo iyagana isla Kenya ah labada wiil waxa way African share darajada 8aad ay galeen min $10,000 abaalmarin ay qaateen labada gabdhood min $5,000 abaalmarin ay qaateen sidoo kale qof baa dalxiis helay asigana dalxiis buu qaatay alxamdulillah anigu kambaniga markaan ku soo biirayay xaqiiqatan waxaan u faa'iideeyay 4 qofood laakiin 4taasi min 4 ay u faa'iideeyeen hadda macaamilkan abuuray iyo dadkan u faa'iideeyay ee bil walba dhaqaale qaata waxay gaarayaan 1,200 oo qofood ay gaarayaan ku kala dhaqan Kenya South Africa Mareykanka iyo Ingiriiska waxaan leeyahay aad ma santiin you are next adiga xiga gaarigaaga xiga dhaqaalahaaga xiga isbedelka noloshaada xiga waa markaagii تعالى وبركاته magacaygu waa Sharmaarka Xuseen Usmaan maanta waxaan imaaday suuqa oo aan ka iibsaday gaarigeygii shalaytana waxa lagu wareejiyay lacag abaalmarin qiimaheedu gaarayo $15,000 $15,000 na waxay ahayd dhaxaltooyo aad ayaan u faraxsanahay sidoo kale lacagtii qaar waxaan ka bixinayaa sadaqo qaarna waxa waa laga soo xajinayaa gaarina waan ka gaday alxamdulillah nimcooyinkii aan tenniska helay maaha wax aan qiyaasi karo sidoo kale maaha wax aan kaliya afka aan ka sheegi karo waa nimcooyin fara badan wallahi horta hooyo Allah u naxariisto therapy ayaa ku timid dadaalkii ay sameysay miraheedii ayaa guranaya anigu edikaarkeygii wuxuu ku jira darajooyinka ugu fiican ee kambaniga sidoo kale gaarigan $15,000 ku qaadanaya hooyo ayaa shaqeysay muddo sanad ka hor ah ayayna dhimatay waqtigan oo kale 26 October therapy ayaa ku timid kullu nafsin daa'iqatu mawt every soul shall taste death naf walba geeridu way dhadhaminaysaa dareenkayguna ma aha wax aan qiyaasi karo South Africa waxaan ahaa tech shopkeeper sidoo kale waxaan ahaa arday dhigta Scalabrini Central of Cape Town xaqiiqatan nolosheedu waxay ahayd hopeless rajo kama aan lahayn nolosha laakiin Tianis markii aan ku soo biiray ee go'aan aan u qaatay ee hawsheedii aan bilaabay waxaan helay bright future mustaqbal ifayo mustaqbal qurux badan sidoo kale maanta walwal kama qabo oo mustaqbalkayga ah hadda wax waan bartaa jaamacadda ayaan dhigtaa jamcihii iyo khamiistii sidoo kale maalmaha kale waxaan ka shaqeeyaa Tianis
Faadimo Cali Cusmaan waaye alxamdulillaah maanta dareemkayga lama soo koobi karo gaarigan ayaan ku guuleystay ayaan maartay ayaan soo iibiyay alxamdulillaah wax badan ayaa maartay wax aan ka saayay ma lahane waasa alxamdulillaah waa ku faraxsana dhaqaalaha markii hore soo gali jiray hadaa ku sheego yani wax oo nolol jirtaba ma ahayn sababtoo ah nolosha aan ku noolahay alxamdulillaah waxay aheeday nolol awada waa cuntay ee berita cuni doonta laakiin maanta insha Allah alxamdulillaah 10 qoys waan biili karaan saa u maleynaayo aan jeclahay 10 qoys in maanta awada biil siin karo ayaan isku day alxamdulillaah dad oo maartay wax badan qaataan nahay dad ma sha Allah darajada meel fiican ka joogaan nahay alxamdulillaah waan ku faraxsanahay ma sha Allah tabarakallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلامية دمان قف كستوى قرنية يعد كستوى قرنية انتبه دمان سومالي أيان سلامية كل إن شاء الله حي مقعي قليل هذا محمد إبراهيم عمر وحن هاي ممبر اوف تيانيس برونز لاين ديستريبيوتر كارا جيفر تريبا جيفر يعني هاي وحن لي هاي وحن دوني إن حاجة كنت بيو فرصة هذا غالية أما فرين غالية أيان دوني إن كنت بيو تاسوا إن دمان قف كستوى دوني إنه نرشيس بدلو أنو هاينو fursad uu ku bedeli karo noloshiisa taasoo anaga nolosheena bedeshay oo maalin aan anagoo raadinayna fursad aan nolosheena ku bedelno aan helnay taasoo aan qof kasta maanta shuruud ka celinaysan jirin qofku hadduu marba doonayo inuu noloshiisa uu bedelo ku bedeli karo hadduu doonayo nolol qurux badan caafimaad leh barwaaqo leh dhaqaale leh qurux badan nolol qurux badan oo doonayo inuu ku noolaado waa meel uu ka heli karo taasoo ah ay siinayso fursadaas shirkadda Tienis oo ah multinational company shirkad caalami ah adduunka oo dhan ka shaqeysa waxaan leenahay qof kasta oo raba inuu noloshiisa bedelo kaalay soo dhawow nagula soo biir fursadan aan ka faa'iideysanay taasoo waqti dheer kaaga baahnayn laakiin short time waqti yar oo kooban noloshaada ku bedeli karto aad baan inay jecelnahay dhammaantiinba qof kasta oo noloshiisa inuu bedelo doonayna waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay waxaan haynaa fursad
noloshiinaad ku bedeli kartaan caafimaadkiinaad kor ugu qaadi kartaan ood ku ilaalin kartaan adinka iyo familiadiina iyo qoysaskiina sidoo kale aad dhaqaalihiina kor ugu qaadi kartaan welibana dad in badan idinka horreeyey muddo kooban oo yar ka daba geyn karta xag dhaqaale xag caafimaad haddaad doonaysaan dalxiis haddaad doonaysaan inaad gawaari jabkaraysaan oo noloshiina aad gaari ku raaxaysataan haddaad doonaysaan inaad qurux badan ku noolaataan haddaad doonaysaan inaad nolosha guryo aad leedihiin ku noolaataan waa meelaad ka heli kartaan dhammaan asxaabta waxaan leenahay iyo qof kastoo hami hiigsan leh meel uu ka heli karo ayaan haynaa oo xaqiiqo ah oon inka tijaabinay oon anigu aan u horeynay galnay ka shaqaynay horumar ka samaynay qof kastoo shaki uga jiro waa meel aan u caddaynayno qof kastana aan leenahay kaalay gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhowow salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Good morning time! Are you ready? We are happy. We are ready. Walking. Getting. Cash. Turn up.